Sheekada sagaalaad. Ilaahay waxa uu u yeeray Muuse. Markuu Yuusuf dhintay, dhammaan qaraabadiisii waxay joogeen Masar. Qaraabadii Yuusuf iyo waxay sii dhaleen oo dhan, iyo carruurtoodii halkaas ayay ku tarmeen, waxaana loogu yeeri jiray Israa'iiliyiin. 100 sano kadib, Fircoon cusub ayaa qabsaday waddankii Masar. Masaaridiina way iloobeen wixii fiicnaay ee Yuusuf u samayn jiray iyaga, iyo sida uu u caawin jiray markay abaaru timaado. Aad ayay uga cabsadeen Israa'iiliyiinta, waayo way fara badnaayeen oo aad ayay u tarmaayeen. Kadibna masaaridii waxay ka dhigeen Israa'iiliyiintii kuwa addoommo u ah iyaga. Masaaridii aad ayay u cadaadiyeen Israa'iiliyiinta, waxayna ku amreen inay dhisaan dhismooyin fara badan iyo magaalooyin. Shaqadaas faraha badnayd waxay ku noqotay dhibaato, laakiin Ilaah wuu barakeeyey iyaga oo waxay dhaleen carruur fara badan. Fircoon wuxuu arkay in Israa'iiliyiintu ay dhalayaan carruur fara badan, kadibna wuxuu amray in wiil kasta oo u dhasha Israa'iiliyiinta la dilo laguna tuuro webiga Niil. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadh ka tirsan Israa'iiliyiinta waxay dhashay wiil. Iyada iyo ninkeedii way qariyeen wiilka in alla intii ay karayeen. Markuu wiilkii gaaray xilli aanay qari karaynin, waxay wiilkii ku rideen dambiil, kadibna waxay ag dhigeen webiga Niil qarkiisa ama dhinaciisa. Walaashiisii ka weyneed ayaa meel fog ka ilaalinaysay oo waxay rabtay inay ogaato waxa ku dhaca wiilkooda. Gabadhii Fircoon dhalay ayaa webiga Niil imaatay, kadibna waxay aragtay dambiil webiga dhinaciisa yaalla. Markay aragtay inuu ilmo ku dhex jiro, way qaadatay sida ilmaheeda oo kale, waxayna soo kiraysatay naag Israa'iili ah si ay wiilka naas u nuujiso. Waxay soo kiraysatay gabadhii wiilka dhashay, iyada oo aan ogeyn inay tahay gabadhii wiilka dhashay. Markuu wiilkii weynaaday, hooyadii waxay wiilkii u celisay gabadhii uu dhalay Fircoon. Kadib gabadhii Fircoon waxay wiilkii u bixisay Muuse. Maalin maalmaha ka mid ah, markuu Muuse weynaaday, wuxuu arkay nin Masri ah oo garaacaya nin addoon ah oo reer banu Israa'iila. Kadib Muuse wuxuu isku dayay inuu badbaadiyo ninkii Israa'iiliga ahaa. Markuu Muuse arkay inaan cid kale meesha joogin, ninkii Masriga ahaa ayuu dilay wuuna aasay. Laakiin qof ayaa arkayay Muuse markii uu dilayay ninka. Markuu Fircoon ogaaday waxa Muuse uu sameeyey, wuxuu damcay inuu Muuse dilo. Muuse wuu ka baxsaday Fircoon oo wuxuu aaday meel ka baxsanayd Masar, si aan ciidanka Fircoon u soo qabanin. Muuse wuxuu noqday ari-jire, xaasna wuu guursaday, 2 wiilna wuu dhalay. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo la joogo arigii ayuu arkay kayn gubanaysa, laakiin kayntu ma aysan ololaynin. Muuse wuxuu ku dhowaaday kayntii si uu u fiiriyo. Markuu ku dhowaadayna kayntii, wuxuu maqlay codkii Ilaah oo leh, Muuse, iska bixi kabaha, waxaad taagan tahay dhul barakaysan. Ilaah wuxuu ku yidhi, waxaan arkaa dadkayga sida ay u dhibaataysan yihiin. Waxaan kuu diri doonaa Fircoon si aad dadka reer Israa'iil uga soo kaxayso gumaysiga Masar. Waxaana siin doonaa dhulka Kancaan, dhulkii aan u ballan qaaday Ibraahim, Isaaq iyo Yacquub. Muuse ayaa Ilaah ugu jawaabay, ka waran haddii ay dadku i weydiiyaan kan i soo diray, maxaan ugu jawaabaa? Ilaah ayaa ku yidhi, waxaan ahay kaan ahay. U sheeg, waxaan ahay kan ku soo diray adiga, Ilaaha weyn ee keligii jira, Ilaaha abuuray halkaad ka soo farcanteen, Ibraahim, Isaaq iyo Yacquub. Magacayguna weligiis wuu jiri doonaa. Muuse ma rabin inuu Fircoon u tago, waayo wuxuu islahaa si fiican ulama hadli kartid Fircoon. Kadib Ilaah wuxuu Muuse u soo diray walaalkii Haaruun si uu u caawiyo isaga. Ilaah wuxuu Muuse iyo Haaruun u sii sheegay in Fircoon uu madax adkaan doono.